badan oo lagu pressure gareeyay social media lagu caayay niyada ma ka soo gashay inaad cadeysid mise midabkaaga bedeshid ruuxii hadda ugu dambeeyay social media qofkii ugu saameynta badnaa ahayd صح oo inta badan la wareejinayo meel walba commentiyada inta badan la soo qoray waxa dhibsatay miya mislaak waa fiirinaysay caadi leh kuleed waa ka socotay hal hees baa jirta heesta farxiya fiiska hawa cadhan waqtigeeyo calaf waxaad ku weydo so heesaha Soomaaliya ayaan dhahaya nin ajnabi ah ma guursan lahayd waaba tahriibay anoo tahriibay la soo qotay hor ma soo guursatay lagu dhaw kalidaad u bixi ma u bixin lahayd waa qalanjo Soomaali oo idiga soo salaamaysa channelka Maha 4K asxaabta more 4K studio ku xiran waa idin salaamay soo dhawaada idin leeyahay caawa aniga martidiya let's go okay qalanjo Soomaali su'aasha koowaad ku weydiinaa waxa waaye magacaaga saxda ah horta bulshada aniga waxay ku barteen qalanjo Soomaali laakiin magacayga saxda ah oo saddexan waxa weeye Muna Ahmed Cartan okay Muno yes halkee ku dhalatay waxaa ku dhashay wadanka Syria gaar ahaan magaalada Dimashq ama Damascus oo taqaanaan su'aasha saddexaad ku weydiinaa waxa waaye halkee wax ku soo baratay run ahaantii anigu meelo badan ayaa wax ku soo bartay Syria wax ku soo bartay Syria Kenya yeah last okay Syria iyo Kenya wadankee is leedahay waqti dheer aad joogtay Syria yes su'aasha xigta ku weydiinaa waxa waaye waxbarashada ilaa heerkee ka gaartay college university maahan adiga waa university faqiireed inta taqaana college baa la okay su'aasha xigta ku weydiinaa waxa waaye qalanjo Soomaali single miya mise waa su'aasha dadka inta badan is weydiinayaan qalanjo Soomaali horta ma jacayl ahaan mise xiriir ahaan okay xiriir ahaan mise qof jacayl meelaha maya horta anigu u jira qof aan shay kale aan la wadaago laakiin maanta ma oran karo xiriir ama jacayl marka qalanjo Soomaali waa single yes single baa waa madax banaan laakiin qof ina xiriir la leedahay waa sheegtay complicated maya qofkaas sheeko kaliya waa isbaranayna kaliya okay process ka socdo wali meeshii oo lagu dhigi lahaa qalanjo Soomaali single ma aha ma gaarin wali ma gaarin okay su'aasha xigta ku weydiinaa waxa waaye hor ma soo guursatay maya waayo dadka inta badan hadda waxay ku haystaan inaa hor soo guursatay soo garaab aad tahay abti saa ogtahay aduguna ogtahay horta aniga waxba qadar Allah i heshay oo abti waa iska bararay shantan baa u ekayo waa ogahay laakiin maya waligeen soo guursanin waligeen ciyaal ma dhalin laakiin waa rajeynaya maalmaha kamid okay hadday noqoto inaad guursatid nin ajnabi ah ma guursan lahayd okay aniga run ahaantii mid baa kuu sheegaya aniga qofka hadduu shantiisa salaad tukado ilaahaysina ka baqo ya qofka haddaanu yacni diin aanu wadaagno diin wax ka weyn maya jira diintaas haddaada wadaagno yes waa guursan lahaa nin ajnabiya yacni ma cunsuriyayaan laakiin mar kasto allafi farax lagu baasto marka jawaabtaada waxaa waaye maada guursateen ajnabi maya okay farax intuu marag kasoo noqonaya suwaano su'aasha xigta ku weydiinaa waxa waaye da'daada meeqa sano jir aad tahay 25 waxaa iga dhiman 11 cisho bisha labaad todobadeeda hambaliyada waa xagiina 25 baa gelaya so 25 sanadka dhalatayna 1999 okay yes
su-aasha xigta walaal ku soo free time-kaaga maxaa sameysaa, maxaa jeceshaa inaad sameysid, hobbigaaga? I like reading books inaa buugta akhristo. I like inaa asxaabteyda waqti aan la qaato. waxaa kaloo jeclahayna dee inaa adventure aado ama safar. filimaanta ma jeceshaa? 50-50. filimaanta soomaalida sameyso qaas ahaan? aniga riwaayadihii soomaalida hore waa jeclaa. kuwa hadda joogo filimaanta ayagana waa amazing waxuma. heesaha? I love music. Ilaahay iga cafi. okay, heesaha jeceshahay type-kee waaye? aniga maadaama like afrobeats aa dhegeystaa, waxaa dhegeystaa somali music, waxaa dhegeystaa hip hop, waxaa dhegeystaa R&B, waxaa dhegeystaa swahili, wax kasta adiga yani meesha iga tustaabtay. laakiin hal genre oo waxaa jiro favorite-kaaga ah, kaas aad jeclaan lahayn inaad noo sheegtid? hal heesa, may hal fanaana. may He, waxaa ku dhahay like he, waa kala dhigta maahano afrobeat bongo saas oo kala dhigtay. ha, soomaali maxaa lagu dhahaa genre? ha, yeah. okay, hal type aan waa inaad ii sheegtid oo your favorite ah. wallahi hip hop? hadda right now xaaladda ku suganaysa maaha. horta hal hees baa jirta. heesta farxiya fiiska hawa cadhoon waqtiga iyo calaf waxaad ka weydo. so heesaha soomaaliga ayaan dhahaya. inta badan aad dhegeystaa? badanka heestaasaa dhegeystaa. social media gorma kusoo biirtay? social media waxaa kusoo biiray 2019. 2019? yes 2019 ilaa 2018. waxyaabaha kala kulantay ma jira oo aad dhibsatay inta social media ku jirtay? waxaa way jiraan. maxaa ka mid ah haddaad noola wadaagi kartid? oo yani aniga ahaantay dhibay mise yani wax aad dhibsatay oo social media ku aragtay? horta laba arrin way jirtaa. horta arrinka gabdhaha lasoo qarxinayo iyo wiilasha lasoo qarxinayo, aniga haddaa maqla heesta waa laga garbaxayaa abti ilaah baa ku dhaarta wadnaha ay jabta. anigoo arkin xitaa qofka ku jira. arrinka qarxiska number 1. number 2 arrinka isku mashquulka, like why anaga aan iskugu mashquulsanahay, you know. arrinka saddexaadoos ahna aniga ahaanteeda kaas aniga u khiseeyaa in laygu haysto maxaad isku cadee weydi. marka intaas ay ga dhirtay. yes. weliga adiga niyadaada makaa soo gashay inaad cadeysid? runtii maadaama like gabdhaha adiga agekaaga camal ah inta badan hadda is cadeeyaan, adiga inta badanna oo lagu pressure gareeyay social media lagu caayay, niyadda makaa soo gashay inaad cadeysid mise midabkaaga badashid? maya sabab iyo weydiya. sabab? sababtoo ah qasqaskan lagu sheegayo horta waa dhowr kareema laisku soo qasay. dadka reactionkooda iyo chemical reactionka ka dhici doona meeshaas ma oga. so waxaad garata maaha. I don't trust these people, like ma aamini. saasay tahay aniga I went to school. schoolkana waxaa kasoo bartay if you bleach your skin, markasta aad jirkaaga aad bleach garaysid, like maqaarku wuxuu leeyahay toddoba layers, okay. layer 1 by 1 saa u dilaysid abti macaan lafta u tagay kansar baa kugu dhici kara, xambaar baa kugu dhici karta, skin disease aa kugu dhici kara. saasay tahay alxamdulilah aniga weligeed iguma soo dhicin, laakiin waa iscelcelay habeenada qaar. saasay tahay waxaa leeyahay xaleemo qasqas aniga adi 5 sano ka bacdi aa kolweyna. 5 sano ka bacdi waxaa ka wadaa 5 sano ka bacdi qorshahaaga miyaa inaad cadeysad? maya aniga dhabankana weli yeelana, laakiin ayaga laakiin haragga dhan okay markaasay ogaan doonaan miyaa intaas isbedelka adiga iga leeyahay? dhex gelin.
aniga xaliimo kastoo is cadaysa ma sheegaya ee waxaa sheegayaa xaliimooyinka intay isa soo cadeeyaan gabdhaha ku caaya abti macaan waa madowdihiin qof yahay kulli shay in yajracu liaslix bay dhahaan carabtu. su-aasha xigtaa ku weydiinaa waxaa waaye isbuucii hadda ugu dambeeyay social media qofkii ugu saameynta badnaa ahayd sax oo inta badan la wareejinayo meel walbo kommentiyada inta badan lasoo qoray waxaa dhibsata miyaa mis like waa fiirinaysay caadi leh kuleed waa ka socotay wallaahi horta sax baan ugu daciifnimo layguma baran laygumana baran naag يعني dadka hadalkooda meel uu ka taabto laakiin ilaahay amarkii hadda right now aniga waxaa qabo it makes me so emotional so waxaad garatay maaha markii ilaahay kuma darnaadee run ahaantii haa waa ka xumaaday waa la ooyey sariir waa la jiifay haddana hadday daawanaya waxaa leeyahay walaashiin ayaa ahay iga wareejiya. su-aasha xigtaa ku weydiinaa waxaa waaye saaxiib ma leedahay qof waa u kalsoon tahay? wallaahi qoftaan ma dhihi kari saaxiib waxaa dhihi karaa walaal haa waa leeyahay waa aqra albatros gabadha la dhaho boqorada quruxda Mrs Soomaaliya 2023 taa qoftaas ayaa walaashay ah aniga ama saaxiibtay. okay saaxiibada oo saas hadda u amaantay hadday dhacday in lagu dhaho kelidaada u bixi ma u bixin lahayd? yes of course naftaan u bixin lahaa haddaa awooda because waa qof u qalanta. way kaa keensatay? yes. asxaabtaada mise dadka inta ugu badan hadda aa og tahay inta badan dad badan oo aad taqaanaa tahriibay sax adiga ma jeclaan lahayd inaad tahriibtid mise qurbaha inaad tagtid ma jeclaan lahayd? anigu qurbaha inaad tago horta aad ayaa iyo aad ayaa u jeclahay laakiin nasiib daro way suurtageli weyday insha allah dee ilaahay meeshuu ii qoray uun baan aadayaa ilaahayna wuxuu ii qoray ma seegayo laakiin yes dhoof waaraba. ma tahriibi lahayd? tahriib ahaan ma waa tahriibay anu tahriibay la soo qotay inta badan dadka taas ma oga laakiin dadka taas ma oga dadka ma oga badankooda. okay ugu dambeyn qalin Soomaali asxaabteeda waxaa leedahay? horta adiga ahaantaada Moha 4K Studio waxaa rabaa inaan kaaga mahadceliyo sida quruxda badan aad maanta iga casuumtay barnaamijkan cusub oo la dhaho maxaa ka taqaanaa haa maanta waxaa barateen maxaa ka taqaanaa qalinta Soomaali su-aalo badan oo maybe aad jeclaydin inay iweydiisaan dhici kartay qalbiga iyo quluubta adiga ogahay muuqaalkaana hadduu kusoo gaaro wiilka like subscribe love adargaale xitaa tuuladiina u dirbaan ku idhi hala dhaafina una sheeg barnaamijkan qofka ugu horeeya oo bilaab adiga inaad tahay barnaamijkana dad badanna inay soo socdaan waxaa ahaa qofkii ugu horeeyey oo yacni dad badan oo caanana way soo socdaan wayna soo fadhiisan doonaan insha allah walaalkay maxamed iyo tiimkiisana waxaa leeyahay sharaf iyo karaam